Soomaalinimada iyo muxuu ahaayay karaamada shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku nool yahay Soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto aad iyo aad ugu maasantihiin soo dhaweynta laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaan ogaano saddex fariimood oo aan rabo halkan inaan ka sheego ahmiyadda ay leeyihiin ta ugu horeysa waxa weeye midnimada shacabka iyo wadaninimadu inay tahay arrin muhiim ah runtii annaga mas'uuliyiinta laftiga annaga waxay noo ahayd runtii baraarug hor leh bay noo ahayd yani dadkani sida uu nabadda u jecel yahay sida uu go'aansaday muxuu ahaa 11 gobol dhammaan degmooyinka dadka ku nool inay yihiin dad mid ah oo isku dana oo aan go'aan qashqashaad iyo fikir khaldan runtii arrin la yaab leh oo cajiib oo taariikh ay noqotay aad baad mahadsantihiin shacab ahaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shacabka naga gobonimada iyo sharafta iyo karaamada annagana noo yeelay iyaguna isu yeelay ciidamadeena u yeelay aad bay shacabku mahadsanyihiin hadda koowaad shacabka leh ma hadda labaad waxaa la ciidamada halyeeyada muxuu ahaayay gaarka oo runtii ciddii joogtayna ay garan karto ciddii meesha joogtay ay garan karto geesinimada nimanka isxilqaanka iyo nafhuridda ilaa heerka ay ka taagan tahay runtii intiina kale sheeko iyo sawir bay ku ahaanaysaa laakiin intii halkaa joogtay ee ka warhaysay ee arkaysay ee halkaa jooga shacabka ahayd waxaa weeye runtii wax cajiiba yaa marta halkaa ka dhacay ciidamadeenu waxay jebiyeen qorshe ugu yaraan sanad la diyaarinayay ugu yaraan sanad qorshe la diyaarinayay ayaa ay ku burburiyeen waxa 3 cisho ka yar haba yaraatay marka way ku tusi kartaa qorshaha inta leeg ee 3 saac lagu burburiyay waad garan kartaa waxaad garanaysaan marar jawaada ka jireen deegaanadeena 200 wiil oo meel gashay inay qaadan jirtay 2 sano ama 3 sano in la daba wareego oo shacabka ku dhibaatoodan hal shacab wax kuma noqonaagaas ciidanku si toos ayuu iyagu u abaaray fursad buu u diiday meel ay fadhiistaan haddii fursad la siin lahaa kolay miina aasaan kolay wada istaagaan waxba samayn lahayn marka runtii ciidamadu aad iyo aad u mahadsan yihiin geesiyaal weeye garab istaagi loo muujiyay gar weeye waa in la sii wado dhaqankeedu inta badan Soomaalida waa wanaagsannahay laakiin waxa aan bilowno aad uga sii wadno marka waxaa loo baahan yahay garab istaaga inuu cadifad naga noqon inuu noqdo mid dhaba oo garab istaagno annaguna kulli maalmaha soo socda waxyaalo muhiim ah oo aan ku muujinayno wanaaga ciidankaas ay sameeyeen abaabudka uu mudan yahay ayaan samayn doonaa haddii aan la yidhaah saddexaad fariinta saddexaad waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in aan feejignaan dheeraada muujino feejignaan dheeraada gudaheenna dad cadowga ku jira soo gelaya marka haddii 4 sano ay keentay waxoogaa inaan seexanay oo xagga nabadda aan isni meel walba dadka u furo oo xiriirkii hal hagaajiyo aan isniri waxaan oo kale in naga iman karo waxay noo tahay baraarug hor leysawna inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino fikirka al-shabaab iyo argagixisada iyo ficilkooda toona fursad yar inaan siina maaha saddexdaa fariimood ee arkay inaan uga faa'iideysto soo dhaweyntan quruxda badan ay samayseen ta kale waxaa weeye qorshaha wejigii hore uu dhammaaday argagixisadii saddexda aad isku day inay ka soo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay wax la qabtay iyo wax la diiday laga dhigay haba yaraatee wax ay ku guuleysteen ma jiro xitaa kuwii ciidankeena inay waxyeeleeyaan maalinkii hore ay u suurto gashay 3 laab ayaa laga dilay taana ogaataa 3 laab kuwii xitaa aata weeraray ciidankaasi ciidan bilaash ku shiiday ma ahayn runtii ciidan 10 adag u dhigay ayay ahaayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin agoontoodii iyo muxuu ahaayay ciddii leedahayd iyo wuxuu dhibaatooyinka waa la qaybsanayna xukuumad ahaan eegana waa bilowna qorshihii arrintaa wax laga qaban lahaa maalmaha soo socdaan soo bandhigi doona ugu dambeyn waxaa jirtay boqoshadii feerfeer maalinkii dhaweyte waxaan nidhi ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shisha si hor leh maalin walba la isugu abaabulayo cadow aad aragto iyo abaabulayo buurta kaaramarntii noo jirtay ilaa inoo jira dee qofku computer maaha maalin ay noqoto mar wuxuu la helayaa sidaa daraadeed استراتيجية لبعض وحوي إن كوارتر ضارتنا نوعاس وهالك حدود عن الوسوي
arrinta noocaasi dadka hadlay ka farceliye baa jira walaalaha naga jamhuuriyadda Soomaaliya ka farceliye baa jira waxaan leenahay Soomaalinimada iyo muxuu ahaayay karaamada shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku nool yahay Soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto cid naga jecel dhiiganaga iyo laftanada haddii la shiido waxa laga helayaa Soomaalinimo laakiin waxaa loo baahan yahay in wixii gara muxuu ahaayay laga garama fiican haddii marka ay soo qaadayaan weerarka iyadoo la arkayo cid wax ka qabanaysa ayna jirin waxaad la mid tahay maalin walba daaradda agtaada cid ka soo imanayso la dhacaysa gurigaagii maalin walba muraadid la jabiyo dib inaad u samayso ma soconayso halka haddaad ugu tagto uga dabagashana haddii qofka xaabadda kuma odhan karo maxaad iga daba timid waayo isagay tahay inuu kaa qabtadii marka waxaan leenahay mas-uuliyad baa ka saaran arrintaas inay iska xil saaraan annagu waxaan nahay dad Soomaalinimada jecel xudunta Soomaali oo dhan meel ay ku nooshahayba deegaanka inay taala waana loogiya Soomaali jecel waa kii aan calanka u bedelaynin astaanta Soomaalida uga dhex muujinaynin sidaa daraaddeed in maaragtay fikra khaldan arrinta la geliya maaha waxaanu leenahay annagu xag amni dhul aan cid ku haysanaa ma jirto xuduud aan cid ku haysanaa ma jirto laakiin cidda xaggaa joogtaa waxaa iska xil saarto 10 kilomitir meel halkan ay u jirtaa oo shabaab isku urursanayso oo loo dhaqaaqay maxaa lagu macnayn karaa sax maaha baa leedahay arrintaasi aan kala garbaxno sax maaha arrintaan haddii wax laga qabto sababaanu annagu meel kale u doonno ma jirto aad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu